سفركم مانتا كويمي هالكن سووا يوضع السعودية وزيرة وحبرشة الصومالي لان طبعا سودان كودا اللي هي وادقران كرتا قف حلي صو سفري تمرتا يأود تشيريد وهين كرو ونسودان بينينا حفلة يكتلقل كمان تاين هالكن اسكوكو نمي وعلى مساركا عم ببحينتا حلبان راح عيرو راحوا كتلقل كيد وحوي إنك قيم كشو سياسة دي قرنكا جودهان يجارهان با إن سودان كودا اللي هي فضلا كلمة دانسين دونا وحي نورن إنك أي سودان بين شاكيسن وحي سورن سودان إسماعيل سودان عبدي فليتفضل سودان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بمهدله إنه كل مية حفلة أنه حلا أفريقيا شوفنا إن العاونة إذا كلا قيب الله حفلة كم إذا حفلتها يوروب لقو قبنا وحي فرحة إن هبين كيجي كوباد لكم سدو إذن كوا حفلة له أي كم تهاي حفلتها وقيمها بدل له بلشوي ترير سومالان كنول وقويga يوروب قارهان مقالة ستوكهولم إن هذا كلا قيب قلاوة إيه فرحة عاوة وأنا إيه شرف إنت أمريكا كجدو هذا الكيجو عاوة وحكوكو بنادونا حفلة أذوق قطين سجوتيس كراحو أيوكو بنادونا marka koowaad waa xafladii iigu horeysay ee xildhibaanadeena golaha deegaanka Soomaaliland ka sharaxan ee aan ka hadlo xafladda raaxo sababtu waxa weeye halkan raaxo kaliya ka sharaxan laakiin halka waxa ka sharaxan kun qof oo inaga ah oo axsaabta kala duwan ka sharaxan marka hadii xildhibaan xisbi ka sharaxan u raacdo xafladiisa waxaad ku qasban tahay inaad dhammaan ragga iyo dumarka aad suldaanka u tahay ee ka sharaxan xisbiyada kale oo dhan inaad xafladooda tagtaa aad ku qasban tahay marka waa qof bini'aadan aad tahay haddii aad habeen xisbi ka hadasho waxa ceeb noqonaysa habeenka dambana xisbi ka hadasho marka taal ashligeed baanu mamnuucnay inaan xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka u sharaxan inaanu xafladooda ka hadallo laakiin tani way iiga duwan tahay caawa
sababta oo ah waxa inta muddada aan joogo iyo horena uma maqal qof halkan intuu iska soo sharaxay waddanka ku soo socda halkanna ka soo iclaamiyey waana xildhibaankii koowaad waan soo dhawaynaynaa gacmo furan baan ku soo dhawaynaynaa waan u ducaynaynaa in ilaahay hamigeeda iyo himilada ay doonaysa inay gaadho in ilaahay u fududeeyo annaguna wixii taageeraa waanu la garab taagannahay midhna waxaan leeyahay reer Suudaan raaxa uma sharaxna golaha deegaanka Gabiley raaxa waxay u sharaxan tahay qaybo ka ballaaran oo xisbiga kulmiyo kaliya aan ahayn reer Suudaan iyo waqooyiga Yurub way u sharaxan tahay maanta waxa kale u sharaxan tahay haweenweynaha reer Soomaaliland gudaheed dibadba raaxa way u sharaxan tahay waxa kale u sharaxan tahay raaxa qurba jooga Soomaaliland guud ahaantii rag iyo dumar bay u sharaxan tahay haddii hamigeeda iyo guusheedu aad raaxo ka midho dhalin weydaan maaha raaxo oo keliya cidda niyad jabku ku imanayo dhammaantiin niyad jabkaas idin taagan marka waxa la idinka doonayaa idinku inaad xoogga saartaan maadaama ay tahay gabadhii koowaad ee soo sharaxdeen inay soo baxdo inay idinkeeda ka timaado ayaa loo baahay arrinka raaxo waxa ku ladhayaa duco ilaahay baa ku ladhayaan ilaahay ku guuleeyo oo u fududeeyo muddadu way yar tahay kulley haddana way dheer tahay inaanay iyadna ka daalin intaa ee ay wado dadaalkeeda ay ku gaadhayso guusha xildhibaannimada insha allahu tacaala intaa markaa ka gudbo xisbiga kulmiye ee aad ka sharaxaysaan raaxo maanta wuxuu taagan yahay halkii ugu dambeysay buu taagan yahay muddo ka yar waxaan u maleynayaa muddo caawa marka laga reebo ka yar 45 cisho ayaa ka hadhay guushii madaxweynenimada aynu u halgamaynay muddada dheer aynu soo halgamaynay dadka qurbaha jooga waxa laga yaabaa inaydaan tagin oo aydan codka la wada tagin in yar mooyaane dadaal kale oo aad wax ku tari kartaan baa 45 ka cisho harsan dadaalkaasi muxuu yahay in fikirkiinu midaysnaado oo ka guud ee qaranka guud ee xisbiga kulmiye Ibrahim Aadan oo ah isaguna udub dhaxaadka xisbiga kulmiye afhayeenka guud ee xisbiga Maxamuud Ibrahim xubnaha garabka haweenka ee mustambeedka oo halkaan ku arkayo Fuusiye Gabaxiyo Caasha Buraale Ifraax dhammaantiin aad iyo aad ay caawa farxad iigu tahay in xafladan in kala qaybta qaato kiisina halkaas aan ka arkayaa dhammaantiin waxa weey aad baan idin salaamayaa waxaan jeclahay ujeedada iyo arrinkan caawa iskugu nimi in yar baan jeclahay in aan raaxo ka tilmaamo waxaan xasuustaa oo aan isla wada ognahay isla wada qiraynaa wufuud aad u fara badan oo dalkeenii nagu timaada guriga kaliya ee inta wufuudu seexato cuntadana loo dhigo lana sooro sariirtana looga kaco anu raaxan garanayaa runtii markii aan maqlay raaxo way doonaysaa oo damac siyaasadeed oo xildhibaannimo ayaa galay ayaan idhi raaxo uma baahna campaign waayo waa ay sii dhigato qofku marka uu aakhiro u sii shaqaysto ee uu salaadana oogo soonkana badiya sadaqada taga xajkana tago dee sidii diintuna leedahay waa ay lujana la yidhi marka inay raaxo tacab badan ayay qarankan soo gelisay marka waxaan ku leeyahay raaxo kulley annagu haddaan reer Suudaan nahay waanu ku garab taaganahay kulley gobolka aad u socotana aniga laftigaygu waan ka imi waxaan filayaa in aad lagugu soo dhaweyn doono waanu kaasii horeyn doonaa si qiimanana waa lagu soo dhaweyn doonaa insha Allah bismillaahi kariim ku dheeraan maayo wasiirkii wasaaradda waxbarashada ay nala joogay isagana waqtigoo ku dheeraaday waxa uu fariin soo faray in aan ka hambalyeeyno xildhibaan raaxo ee markaa fariinta wasiirkana naga gudoon inagu haddii reer Suudaan nahay aad baynu nasiib badan nahay oo waxaynu ku nasiib badan nahay dalkeenii mar walba madaxda iyo wufuud way nolol joogan waxaad moodaa Suudaan iyo Soomaaliland inay yihiin laba dal oo jaar ah ayaad moodaa marka qaarkood taana
mas-uuliyaddeeda iyo wanaaggeeda iyo ammaanteedaba waxa leh intayna halkaa fadhida caawa iyo intay naga maqanay reer Sweden markaa waxa leeyahay hambal iyo dhammaan reer Sweden haddii aynu yara u noqono Faadumo waxa ay ka sharaxan tahay xisbiga kulmiye waxa uu ku suntan yahay waa xisbigii waxqabadka waa xisbigii intii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamuud Siiraayo 7 sano uu joogay aynu qof walba mucaarad iyo muxaafidba ka marqaati furayno in uu dalkeenu horumar gaaray oo daaqada laga soo galay ugu horeysay airportka qof kasta uu ka marqaati furayo in uu yahay dal qof leh iyo xisbi danaynaya oo maamulo marka waxaan aaminsanahay oo Soomaaliland oo dham ay isku wada raacsan yihiin inuu xisbiga kulmiye noqonayo xisbiga guusha xisbiga hanan kara qarankan xisbiga ka saari kara waqtiyada adag waana wax loo baahay maanta reer Sweden ahaan iyo inta aan ka ogahay maamulka xisbigu soo gaarsiiyeen shaqo weyn bay ku jiraan oo ku hambalyeynino taasalan xukuumadii gaarsiinna insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo aad iyo aad baan salaamantiin imakana waxaan jeclahay in aan ku soo dhaweeyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ciyaaraha iyo isboortiga Cabdirashiid Xasan Kaahin بسم الله الرحمن الرحيم سلطان كجود سلطان إسماعيل سلطان عبد الرحمن إسلام مركانا حلبان كتر سنقولها جورتي ده حبناها حزبك كلمية ضمان كسوق قلياشة حفلة دم بلان reer Sweden oo dhan jaaliyada reer Sweden oo dhan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaanka bacdi waxa farxad noo ah inaan ka soo qayb galno xafladan loo qabanayo raaxa ciro oo doonaysa in ay u tartanto golaha deegaanka ee gobolka Gabiley hadii Ilaahay dhaahdo waxaan ku soo dhaweynayaa suu kelmadiisa halkan uga yiraahdo gudoomiyaha xusbiga kulmiye ee Switzerland saaxiibkay Cabdikariin halkaas ay ka socon doontaa labkii dhadiga waan isdhex gelin doonaa women empowerment aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa shakhsi ahaan hanka iyo damaca siyaasiga ee haweenku leeyahay soo dhawo Cabdikariin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan marti sharafta madaxda ka soo qayb gashay xafladan quruxda badan ee maanta lagu soo bandhigayo caawa musharaxnimada raaxa ciro oo ka sharaxan xisbiga kulmiye golaha deegaanka ee gobolka ama degmada Gabiley mahad kadib waxaad mahad gaar iyaguna leh madaxda iyo xildhibaanada ka kala socda golayaasha kala duwan wasiirka oo fariinaan la idinku soo gudbiyay salaantiisa وزير كحجينكي هدلي واحد كلا ونما هدلني السلطانك قبل كقبلي ونقلص وقايب كلا نصيب عنو هدلين وعاو قب جوج نوقع هذا حفلة واحد سيدا سو كلا يجونا مثلا وكيل كسومال لانو فرديا سويدن مستر زكريا لحل بان حمزة أو يجونا لفدبر حزبك كل مياه أنت أسمعك كجدبو رر ستوكهولم أما إسرائيل لأنه si gaar ah aan ugu faraxsanahay in ay raaxo isu taagto xildhibaannimada gaar ahaan aniguna shakhsiyan waxaan ka mid ahay dadka abaabulay dabada ka dhici lahaa mataqaanaa waad u qalantaa weligayna waxaan taageero u ahay kaalinta haweenka ee siyaasadda in la biiriyo waxaan rabaa inaan tilmaamo hal qodob
oo laga yaabo inaan cid u fiirsan gaar ahaan xisbigeena kulmiye laantan Sweden waxaan ahaa gudoomiyihii ugu horeeyay ee magacaaba gudoomiye gobol oo aanan ahayn garab haween balse gudoomiye gobolka Westmanland Nuura Yusuf Ibrahim waa gudoomiyaha kaliya ee haweenaha ee gudoomiye gobol ah Sweden oo dhan taana lama fiirsan hal ogaado inaan anigu taageero ahay dumarka jeclayno horay soo maaragtay qaybsadaan awoodda iyo siyaasadda waay ragga badan ayaga ka degan ka maskax badan oo laga yaabo inay maaragtay fudayd lahayn marka qalalaas jiro wadankeeno kale waxaad aragteen campaign-ka in xisbiyada qaar ku campaign gareeyaan qabyaalad iyo aflagaado iyo waxaan loo joogin dumarku waa ka nadiif sida badan dumarka waxaad moodaa iyagu qabiil walba yihiin waxa bulshada u daran ayaa hooyada iyo gabadhana u dan ah marka waxaad moodaa in haddii la hormariyo wax badan noo hagaagi lahayn gaar ahaan arrimaha bulshada caafimaadka waxbarashada wadankeenu 57% waa dhalinyaro oo dhanna hooya haysa oo maaragtay shaqo la'aantooda iyo tahriibkooda ciday dhibtaa waa hooyada taasi waa taa sidaas muhiimad u leeyihiin haweenku inay siyaasadda ku soo biiraan raaxana shakhsiyadeeda waa la idinka sheekeeyay waa qof miisaan ku leh xisbiga kulmiye ma aha laanta Sweden oo kaliya laakiin guud ahaan xisbiga kulmiye waa qof miisaan maamuus iyo sharaf ku leh runtii marka xildhibaanad dooranaysidna siyaasiga waxyaabaha lagu doorto waxa ka mid ah ma aha kaliya aqoon inta gaarsiisan buu leeyahay waxa ka muhiimsan laftigeeda kartida iyo xiriirka contactsku dadku la leeyahay xukuumadda iyo xisbigaba waayo qofka codkaada ma gaarsiin karo madaxtooyada ama halka go'aanka laga gooyo golayaasha kala duwan qofku waa inuu leeyahay xiriir waa inuu ixtiraam ku leeyahay sharaf oo la dhageystaa marka raaxa iyadoo halkan ku nool 5968 kilomitir beerkiisa noo jirtaa iyadoo halkan joogta ayay magac iyo maamuus ku yeelatay madaxtooyada iyo xarunta xisbiga kulmiyaba marka reer gabilay farxad bay u tahay inay qofka caankaas u doortaan xildhibaan matali kara waa nasiib badantiin baan leeyahay waxaan aaminsanahay magaalooyinka kale sida Hargeysa Boorama Berber meesha iska sharaxdaba Burco inay ka soo bixi lahayd baan aaminsanahay waay asxaab badan iyo waxa ku leedahay macaarif xisbigiyo meel walba ma aragtay ka dhisan bari ilaa galbeed marka raaxa waa qof miisaan noocaas leh aad baad u nasiib badantiin habal yaa idin leeyahay wax kale ida oran ma reer gabilay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waqtiga inagu gaaban dartii waxaan jecelahay qof kastoo mikrofoonka siiya inuu soo gaabiyo bikulli ixtiraam qofna ma soo ag istaagi karo oo dhaqankaan ay ku habboonayn inaan idhaahdo soo gaabi waxaan u yeeli doonaa dhigii cabdikariin gudoomiyaha garabka haweenka Ifraax Xaaji Oktoobar fadlan soo dhawow walaal الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد سيدنا وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم وسلام يا حفلة قروح بدل له حفلتها كم مدن حفلتها أوردر بعدين أسبوعين يا بداوي كم مدن تهدي كرم يا وياك وحنا هذا سلام يا وزير سفيرك أو تدخلت وزير وين سفيرك جمهورية سوماليلاند سكرية حمزة على حور حلبان حمزة على حور قرب كي هوانكا maxay tolay goostambeedka yagi foosee gabax liibaan xoogayay xusbiga Ibrahim Cali Aadan xoogay garabkii haweenka heer qaran ee Sweden Amina Caasha Buraale oo dacaasha fagara lagu xusooday geedi Allah ya raxmaan kiisi shifeer Cabdikariin Maxamed Warsame iyo dhammaan hablaha qurqurta badan leh ee taageerayaasha xusbiga kulmiye Sweden ee mar walba hooda yahiida noola taagan inuu mar walba xusbiga kulmiye kor u kacay Sweden aad baan idin salaamaya kaliya Allah baa idin leeyahay
maanta maalin ka wanaagsan ma jirto alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin horta walaashay raaxo waa u hambalyeynaya raaxo maxamuud ciro waxaan leeyahay horta soo dhawow raaxo waa kugu hambalyeynaynaa waan kula soconnaa annaguna xaggaagan taagannahay gobollo badan baa xildhibaan laga wada rabaa weliba dagaar baa baarlamaanka ahe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وارد السلام يا دمانتين مرت شرف كان قروح ذا بدن سويت من هالكن وينها حلبانا ذا قدومياشة كرب كهوينكا مستنبيتكا دمانتي باديات بردي وذا السلام يا مرت سيدا شرفت له عاوشة انت راحة عراء caawa hadalka badin mayno dadkii hore ayaa dhameeyay wasiiradii iyo suldaankii dhammaantood dee way ka wada hadleen raaxo shaqsiyadda ay tahay raaxo maxamed ciro raaxo waa qof cajiiba raaxo waxa weeyaan maanta halka aynu isugu nimid way mutaysatay cidna loo sheegi maayo raaxo gurigeeda iyo maxaan ku dhahdaa waxay qabanaysaba waa la og yahay gurigeeda cidna ma kala laha annaga guriga kaliya ee 15 saacadood ama 8 saacadood gurigan u soo socona waa guriga raaxo 8 saacadood baan caaw soo soconay waxa halkaan u nimid gurigan ku nasano hadii uu wasiir yahay haduu xildhibaan yahay haduu marti kala tahay guriga aanan kala lahayni ee obenki waa guriga raaxo alxamdulillah rabbil caalamiin raaxo way mutaysatay caawa hadayna naguna aynaan isgarab taagin dee kulle waxba isku hurimayno horta hadaynu haweenweynaha nahay aad iyo aad baan raaxo ku soo dhaweynayaa gurigeeda cidina ma kala laha Soomaali Maxamed uu ku aad u furan yahay waxaanu halka u nimaadnaana waa kalkacalanu qabno rukunka yagi weeyaan dee maanta hadaynaan isgarab taagin hadaynu dumarka weynihi nahay ama haweenweynihi xisbiga kulmiye dee maxaynu qof kale aynu soo saari karnaaba aad baa u mahadsantihiin innaga waxa la inoo sheegay koontadii dumarku inoo furan tahay xildhibaano badan baa jira ma sha Allah xildhibaano badan baa jira oo maxaan ku idhaahdaa isa soo sharaxi doona ifraaxa October kisi shafeer oo idna mar hore isa shaacisay dee dumar haweenweynaheena waa la inaga sugayaa xisbiga kulmiye waa xisbiga kaliya haday tahay haweenweynaha haday shaqo tahay haday musharax tahay dee wax walba maxaan ku dhahdaa inoo furay alxamdulillah rabbil caalamiin inaga dadaal un baa inaga rabaa iyo dhaqaalihina dee aynu dhinaca qabanay la xisbiga wayna sugayaa wixii tagayay muraaqibiintii iyo intii safraysay iyo dee arrimaheeni kala waynu kala dhaqaajinaa insha Allah guusha inoo ballana raaxana taariikhdeeda nin waliba uu og yahay inay rukunkeeni tahay wafdi aan iman raaxo gurigeedana aan ku nasani ma jirto marka inaguna dadaal baa inaga rabaa insha Allah bismillaahi kariim raaxo maxamed ciro xaqan soo taagana ku shaacina doonaa وكارو مريدو كي هويه بكيرو هوين وكان كتبو أكاهو هدافو أكاهو هدافو ريريبل أكاهو هدافو أكاهو هدافو ريريبل ما شاء الله راح وحول بينو بينو ayay shaqadeedana u gudan doontaa deegaanka golaha gabilay ayay u sharaxantahay raaxo waan kugu garab taaganahay guuleyso insha Allah aad baan idin wada salaamaya waxaan rajaynayaa hadalku inuu in yaruun inoo hadhay mar dhow gabley iyo gaadaka ciyaar baan isula bixi doonaa markaan caloosha isu buuxsano waxaan soo dhaweynayaa iyadana kisi shofeer RRU gabadha magaca aad baan uga helaa RRU waa ciidamadii ciidanka kamid ah ciidamada jamhuuriyadda Somaliland
kinsi shofeer soo dhawow kinsiyana waa gudoomiye ku-xigeenka waxay uga yimaadeen raaxo inay gelbiyaan inay ka qayb qaataan munaasabadan aan ku sagootinayno aan ku muujinayno musharaxnimada raaxo ciro ilaa iyo taboori waa sharfantii karaamaa leedihiin inta karaama noo haysan ayuuna karaama idin haynaa soo dhawow kinsi shofeer aad عاود ويجا جرى لكن والله قرية بحش لكن اللي يقول هذا ما يهيني أنا حارس السيء بدأت كنا جاي عبد الدونس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما مرت شرفتك وروح بدل يا هالكن السبوتمي مدن تي مرويك يا نمدا شرفت بدل يا مرتي قايها بدل يا هالكن عاود شوكته waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan caawa waxaynu isugu nimi horta aan magacayga ku horeeya waxaa la yiraahdaa kinsi shofeer ayaa la yiraahdaa araariyuna waa la yiraahdaa halisna waa la yiraahdaa alla kabtan halkan caawa waxaynu isugu nimi oo aynu meelo fog aynu uga nimi in aynu ku hambalyeeyno inanta qaaliga ah raaxo marna saaxiibaday marna inaadeertay marna aanu nahay ehelka oo aanu waqti dheer soo gelinay 8 saacadood meel u jirta ayaan uga soo kicitinay raaxo waanay mudan tahay ayaan oran karaa oo aan leeyahay marka raaxoy waxaan ilaahay kaaga rajeynayaa in uu ilaahay kuu fududeeyo xilka aad maxay hayday doonayso hankaagu ku siiyay in aad halkii aad ugu holatay in uu maxay hayday aad ka madadhirin doonto ayaan aaminsanahay dad badan baa halkan isu soo taago waxay dhahdeen raaxa waxay u sharaxan tahay gobolka la yiraahdo Gabiley laakiin anagu waxaanu leenahay waanu ku kaxayn doonaa waxaanu ku keyn doonaa gobolkii Togdheer waxaanu ku geyn doonaa Dayaxa iyo baanu ku geyn doonaa Ceeri Gaabo meel ka fog baanu ku geyn doonaa markaas raaxoy waad mudan tahay in maxay haday saaxiib aad xildhibaannimada waan kugu taageersanahay tigir baan ku goosan doonaa oo dhulka aan sheegayo dhan baan ku soo dawaafsiin doonaa waan kugu soo ridi doonaa laakiin reer Gabiley waxay noo sheegeen in ay halka ay iyagu u dhasheen oo kaliya ay ka soo saari karaan laakiin anagu meel fog baanu geenaynaa inta hadii aan ka soo gudbo martidan quruxda badan halkan waxaa fadhiyo oo aan salaamayaa leeyahay salaan sharafeed xildhibaan Xamse Xoorxoor safiirkayagii nagu qaaliga ahaa isaga laftigiisa markii la caleema saarayay 8 saacadood iyo hay ayaa noo soo soconay isagana waxaan leenahay anaguna markaanu deys caleema saarayno waynaad inta ay noo soo socotaa waa safiirka waxaan leeyahay Sakariya waxa weeye safiirka safiiraha waana shakhsi aad u firfircoon waana shakhsi nagu qaaliya inaanu inta inka badan waqti gelinana xaq buu lahaa laakiin waqtiga nagu yaraayo mar dambe waxaan u maleynayaa 2 jeer oo dambaan is aragnay campaignerka Hargeysana waanu ka wada qayb gali doonaa aadna waan ku salaamayaa Sakariye xogayaa xisbiga kale waan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa Caasha Buraale ama Caasha Fagare xogayaa xisbiga kulmiye xogayaa xisbiga kulmiye isagana waan salaamayaa Ibrahim Cali Aadan in yaroo fariino baan doonayaa waxay ku yar waqtiga inaan kuna aad buu ii soo eegayaa gacantiisu waana igu soo forortaa marka in yaroo baan doonayaa inaan ku soo koobo waxaan leeyahay waxaynu gaadhay waqtigii kaambiga Somaliland Musabixi Cabdi ayuun baan doonayaa inaan yar halkan aan ka idhaahdo oo maxay mudan in aynu salaano waxaan leeyahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha Musabixi Cabdi iyo marwadiisa waxaan u dirayaa salaan sharafeed in yaroo baan doonayaa waxaan leeyahay Muusow wuxuu aad lagu maxay Muuse wuxuu gaaray waqtigii loogu talagalay in uu wadanka jamhuuriyadda Soomaaliland uu hogaamiyo
ilaahayna ha kugu guuleeyo xisbiyada mucaaradka madaxweynuhu soo saarayna saddexda xisbiyo madaxweynaha way u siman yihiin waana xisbiyadiisii ilaahay waxaan ka baryayaa inuu nabadgelyada si qurux badan uu noogu dhameeyo aad iyo aadna waan idiin salaamayaa dhammaantiin hablaha sharafta badan iyo inanka kamarada haya iyo inankana igu ciriiriyay waqtigii oon ku salaamaya adigana adiga mudan kiisiyey waxaan intaa uga gudbi doonaa oon iyadana kelmad isagana kelmad siin doonaa haweenuun baan isdabageliyey maxamuud ilka case kabacdi waxaan usii gudbi doonaa in kale oo iyaguna mudan inay halkan ka hadasho mase dheera haddaan ugu bato waa 2 qof dabadii waa mahadsantiin xogiyihii xisbiga hadal muhiima hadhay oo dabcan isagana u baahan inaynu sugno oo halka u dambaysa xisbiga uu ka qabto hadalkiisa gunaanadka soo dhaweyntaas waxaa boqoradayday waan ka looga baaqa waxaa boqoradayday بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين halkan waxaan horta ku soo dhaweynaynaa haddii aan nahay xisbiga kulmiye gaar ahaan caasimadiisa iyo inta gobol ay xukuntaba waxaan idin leenahay dhammaan marti sharafta halkan ka soo qayb gashay si mug leh oo galgacayl ku jiro ku soo dhawaada dhammaantiinba halkan anigoo qiimaha iyo qaayaha leh alxamdulilah rabbil caalamiin marka labaadna waxaan leeyahay walaashay raaxo hambalyo anigoo ku hadlaya afka gobolka ay ka sharaxan tahay walaashayda qaaliga raaxa ciro waxaan leeyahay anoo ku hadlaya afka gobolka Gabiley waa codkaagii Gabiley buu kugu sugayaa adiguna diyaaradda raac kooto ayaa laga sheegayay maxaan ku idhaahdaa in dumarka lagu siin doono wax anu waxaan leeyahay hadday sida ragga u soo tartanto codka way helaysaa waliba waxay ka badsanaysaa ragga iyagu isku sheegay inay boqolaal yihiin ما شاء الله وما باهنا رنتي راحو شخصيتي إن لقى شيكيو هي إن لبونبونيو مدنا راحو وقف آدي آد رنتي وبلادن كان بلادن إن النقطة قف قبل كليه كسوتشي ذا رنتي وقف لا أوران كارو وقف قرن سيدا إنه ودوكسون هاي إنتين إسويدن شوكتا دل كان والله يقانا ولا شيء آدي ayaan ku soo dhaweynaynaa hiiliyo hooba waanu kula barbartaaganahay waxaanu ku leenahay waa halkaadii waad asiibtay horow soco waxa kale oo halkan uga mahadnaqayaa dhammaan wafdigan qiimaha badan leh ee halkan fadhiya madaxdii qaranka oo dhan ugu horeeyo safiirada safiir Sakariye Xasan Wacays aad iyo aad baan u salaamayaa waxa kale oo halkan ka salaamayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye walaalkay Ibrahim waxaan leeyahay soo dhawow xogayaha guud ee xisbiga kulmiye waxaan leeyahay walaalkay soo dhawow waxa kale oo salaamayaa dhammaan madaxda qaranka iyo madaxda xisbiga waxaan salaamayaa gudoomiyaha magaalada Stockholm isagana aad baan u salaamayaa garabka haweenka ee xisbiga kulmiye iyagana waan salaamayaa salaanaad iyo aad u qiimo badan runtii xisbiga kulmiye hadii aan xoogay ka yar taabto xisbiga kulmiye isaga ayaa ismuujiyay oo runtii uma baahna in tilmaamo badan laga bixiyo waa xisbi la oran karo waa xisbi siyaasadeed oo la oran karo uu buuxiyay waxyaalihii iyo shuruudihii looga baahnaa aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay walaashay raaxo inay xisbigaasi iyadu ay door bido oo ay siiso kalsoonidiisa waayo waa halka aan isleenahay labeentii siyaasadda Soomaaliland xisbiga kulmiye ayay hadda isugu biyo shubatay marka walaal waan kugu hambalyeeynayaa doorashada xisbiga qiimaha leh aad dooratay runtii aad iyo aad ayaan kugu qiimeynayaa waayo xisbiga kulmiye waa xisbigii maxaan ku idhaahdaa aasaaskii Soomaaliland qaybta weyn ka qaatay
muujiyeyna dadnimadiisa iyo damiirkiisa iyo dowlad wanaagaba u muujiyey shicibkiisa ee soo daadihiyey muddadii la odhan karo waa casrigii dahabiga ahaa ee Somaliland waxaan rajaynaynaa inuu mar labaad iyo mar saddexaadba uu xisbiga kulmiye uu ku guuleysto waxaa halkan maanta munaasabadan rabaa inaan waxoogay guubaaba musharaxa Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxan xisbiga kulmiye dabcan aad si fiican u wada garanaysaan waxaan halkan ka ballan qaadaynaa haddii aanu nahay reer Sweden inaanu hiil iyo hoob la barbar taaganahay mujaahidkayaga madaxweynahayaga mustaqbalka Muuse Biixi Cabdi salaan iyo hambalyo ayaanu halkan kaaga soo diraynaa diyaaradahuna dabaday saystaan waan soo soconnaa guubaabo iyo waxaanu kula soo soconnaa taageeraba marka walaashay ciro waxaan ku leeyahay ha baqanin waanu ku barbar taaganahay ha baqan baanu ku leenahay dhammaantiin waa salaamantiin runtii waxaan u kacay inaan walaashay guubaabadaas aan guubaabiyo waanan maxaan ku dhahdaaye aad iyo aad noogu faraxsanahay inaan xubin dumarka aadan soo dhawo kelmadaada ankaagu hadhaafo ankaagu hadhaafo reer hebel بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan marti sharafta timi gaar ahaan waxaan u salaamayaa madaxda halkan fadhida safiirka Sweden xildhibaan Xamsi iyo madaxda xisbiga kulmiye waxaan kaloo aad iyo aad u salaamayaa macaarif fara badan iyo asxaab halkan fadhida intaa haddaan ka gudubno waxaan u malaynayaa waxaan u nimi munaasabadda raaxo ciro walaashay waxaan leeyahay hambalyo hambalyada waxaan ku raacinaynaa runtii waxaan anigu aada ugu faraxsanahay in maanta qurba joogeennii wadamadan joogay ay noqoto in ay qurba joogeennii uu maanta bilaabo inuu ku noqdo wadankii isagoo sida xadaaradii iyo wixii uu qurbaha ka ururiyey runtiina waxaan aaminsanahay markaad eegto wadamada adduunka horu maray oo dhan waxa horu mariyey dad qurba jooga oo dibad bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Nuur Yuusuf waxaan halkan hambalyo ballaaran uga dirayaa walaashay raaxo Maxamed Ciro oo u sharaxan gudoomiyaha xildhibaan gobolka Gabiley waxaan leeyahay walaal ku soo dhawow raaxo sidaadaba adigu xildhibaan u tahay oo waxaan u malaynayaa inaad xildhibaan imika cusub noqonaynin waxaan leeyahay raaxo ilaa intii aan ku arkayba waxaad ahayd qof ummadda isku keena oo madax kasta oo Somaliland ka timaadaba gurigeeda ku soo dhaweysa oo ku martiqaada oo u taagan maaragtay mar walba heeganka Somaliland waxaan leeyahay raaxo wad u qalantaa xildhibaan iyo wax ka sii sareeyaba marka waxaan leeyahay walaal hambalyo dhammaanba halkan caawa waxa isugu yimid dad fara badan oo aad raaxo u jecel oo raaxo qofkay tahay garanaya iyo qiimaha ay leedahay meelo dhaadheer iskaga yimid taas adaa ka baday raaxo koos waxaad ahayd qof aad iyo aad u qadarin badan waxaan leeyahay waad ku guuleysanaysaa hankaaga insha Allah bismillaahi kariim annaguna waan ku soo ducaynaynaa waxaan kaloo halkan ka salaamayaa dhammaan gudoomiyayaasha xisbiga kulmiye waxa halkan la fadhiyay isaguna safiirkayagii Sakariya Xasan Wacays waxaan leeyahay adigana walaalaad baan ku salaamaynaa waxa halkan fadhiyay isaguna xildhibaan Xamse Cumar Xoor waxaan leeyahay ku soo dhawow adiguna walaal waxa kaloo halkan fadhiya gudoomiyaha iyaga xisbiga kulmiye Cabdikariin waxaan leeyahay walaal adiguna ku soo dhawow
anigoon halkan kusoo wada koobi karaynin magacyadiina waxaan leeyahay ibraahim cali aadan oo ah xogayaha xisbiga kulmiye waxaan leeyahay ibraahim adiguna kusoo dhawow dhammaan halkan waan idinka wada salaamayaa kolley waxaynu caawa iskugu nimid waa farxadda walaasheen raaxo maxamed ciro waxaan leeyahay raaxo walaalo waad ku guulaysan doontaa insha allah hadal badan sii odhan maayo kolley hambalyadaadu maan halkan usoo istaagay haddana waxaan rabaa inaan ku guddoonsiiyo ubax faraawil aan kuu sido kusoo dhawo walaalo kusoo dhawo walaalo raaxo hadalka kuma fiicniye halkaasaan kaga bixi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda hagrataa u hiilin lahayd hooyo waa lama huraan hooyo waa lama huraan caqli ahaan iyo dareen ahaan iyo qof ahaanba waan soo dhaweynayaa madal kasta oo haweenku kaga qaybgelayaan talada qaranka danbay inoo tahay waxaa tusaale u ah qarankaynu joogno ee barwaaqada ah waxaa tusaale u ah qarankaynu joogno ee bilaa musuq maasuqa ah waxaa tusaale u ah qaranka quruxda badan ee laambadihiisu korka ka iftiimayaan ee Sweden haweenba halkaa gaarsiiyey raaxa himiladaada waa kugu dhisaynaa waa kugu garab taaganahay waxaan siin doonaa kelmadii u dambeysay xogayaha xusbiga kulmiye ibraahim wuxuu kelmadda ku soo xiri doonaa oo ku soo dhaweyn doonaa raaxo soo dhawow xogaye adigaa raaxa soo dhaweyn doona hadalkiina halkaasuu inoogu xidhan yahay weynka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين من أمور الدنيا والدين حلبان راحو عرو فاطمة راحو سفير جمهورية سوماليلاند dalka Sweden سفير سكريا حسن وعيس صاحبكي حلبان حمزة حور madaxda xusbiga kulmiye heer qaran iyo heer gobol gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee garabka haweenka xusbiga kulmiye caasho buraale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xusbiga kulmiye kinsi shofeer xogayaha guud ee garabka haweenka xaliimo cali xasan gudoomiyaha mustambeedka xusbiga kulmiye ee Sweden ee garabka haweenka mujaahid fosiye gabax gudoomiyaha Stockholm ee xusbiga kulmiye cabdikariin axmed warsame afayeenka xusbiga maxamuud ibraahim afayeenka Sweeland maxamuud ilka case iyo dhammaan anigoo halka kusoo tirin halkaan waxaan arkaa garabkii dhalinyarada walaashay umul kheer maxamed intaan dhaafay waa xusbi ballaadhan iyo walaashay ifraaxa jagtowr xagga dambe iga taagan gudoomiyihii garabka haweenka ee Sweden Stockholm aad iyo aad baan dhammaantiin salaamaya marti sharafta kale halkan isugu timi rag iyo haween waan idin salaamaya waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada waxaynu isugu nimi bilista iyo si tabantabaynta iyo shaacinta xildhibaan faadumo raaxo oo isu sharaxaysa golaha deegaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Gabiley waxaan ka taabanayaa dhowr qodob oo kooban waqtigu nagu cidhiidh yahay walaashay raaxo faadumo raaxo waxay igu horeysay 1997 xaafadeeda tanista aan ugu yimi maalinta aan raaxo u yimi ma aqoonin waxaan ugu yimi arrin khusaysa Somaliland iyo dib u dhiskeeda oo lagu qabanayay xaafadeeda waxay ahayd 22 sano ka hor muddadaas 22 sanadooda raaxo waxay u taagnayd oo ay ka qayb qaadatay horumarinta qadiyadda reer Somaliland haddii ay tahay
dib u dhiska siyaasadda ictiraafka iyo soo dhoweynta madaxda xusbiga madaxda Somaliland iyo madaxda xusbiga kulmiyada madaxweyne daahir Riyaale Kaahin soo dhoweyntiisii lambar 1 ka ahayd madaxweyne jamhuuriyadda Somaliland isagoo ah gudoomiyaha xusbiga kulmiyada halka noogu yimi soo dhoweyntiisii raaxa 1 ka ahayd waxa iga marxaatiya wasiirka xanaanada xoolaha Cabdilaahi Cakuse qadadii macaanidii gurigeeda ugu samaysay wasiirka warfaafinta jamhuuriyadda Somaliland وإنك يقول يا أبو تشوفني بروفيسور أحمد إسماعيل سمطر وإنك يقول يا أبو تشوفني مايركا جمهورية سوماليا عاصمة جمهورية سوماليا عبد الرحمن سولتيلكو وإنك يقول يا أبو تشوفني راحوا دي يا ترين كرايا يا غار كلام بدن شيخ ديرين حق علماء كدر يعني هو إبراهيم هو جوري ونويا هاي حقيقي حسب كلمية جوري راحنا ونويا هاي حرنتا حسب كلمية عن سجون مادنا فنانين الصومالي لان يا غار كلام بدن والله يال راحوا شخصي سومالندرا وحيوش رحنتي سوماليلاند وحنا كشر رحنتي سوماليلاند لكن ما دام دي جغرافي كلي اي تاي قفكو انو دغمه اسكا سو شرحو راح way ka sharaxantay degmada Gabiley waxaan leeyahay walaalay waad guuleysanaysaa waanu ku barbar taaganahay shakhsi qaaliyaad nagu tahay haddaan xusbiga kulmiyanahay wax badan baad u qabatay ummadaada wax badan baad shacabka ugu qabatay abaalkaana waad nagu leedahay waanu ku gudaynaa waxaan jecelahay laba hablood kale halkan caawinaan ka sheegayo musharaxiina oo xusbiga kulmiye ka tirsan walaashay كنسي شوفير RRU أو شرحن واللي هو صدح حفل هذا حسب كل مياه هو قرب كوين كو شرحن ولا شيء كنسي شوفير RRU أو أهم شرح وشرحن قلها برلمان كا قبل كتقدر إفراحة أحمد إفراحة أكتوبر قدوميها قرب كوين كيسويلان أو شرحن يدنا سيدو كله قلها برلمان سوماليلاند وكشرحن قبل كتقدر waxaa kaloo iyaduna sharaxan shakhsiyaad ranti qaali ugu ah xusbiga kulmiye maamada xusbiga kulmiye mujaahidad caasha buraale marwadii safiirkeeni qaaliga ahaa ee safiir fagade iyaduna ka sharaxan gobolka Sool xusbiga kulmiye wuxuu qayb qilxaadle ka soo qaatay guushii aynu ku hantinay kursiga maanta aynu ku fadhino muddadii 8 sanadood aynu ahayn mucaaradka qayb qilxaadle baynu ka qaadanay waxa iminkana diyaar xusbiga kulmiyelantiisu uu yahay inuu qayb libaaxla ka qaato sida mujaahid Muuse Biixi Cabdi uu kursiga ugu fadhiisan lahaa ee halka ka sii wadi lahaa horumarka ballaaran iyo guusha aan la soo koobi karin ee dhinac walba leh ee uu ku guuleystay xusbiga kulmiye muddadu xilka hayay walaalayaal waqtigeenu ka bandaraadeed haweenka aan soo tiriyay ee reer Suudaan ee u sharaxan golayaasha deegaanka iyo golayaasha baarlamaanku raxmo iyaduna halka fadhiyo gobolka Gabiley ka sharaxan gobolka ay ka sharaxan Maroodi Jeex haweenka faraha badan soo tiriyay walaalayaal waxa weeyaan haweenku waa halka ay ka abuuranto wax qabadka bulshadu waa cidda u war haysta qofka jilicsan qofka baahan ilmaha iskuulka u baahan ka bilaa shaqada maanta waad ogtiin tamaandada ay la fadhiistaan hooyooyinka suuqu ayay ku masruufaan oo carruurta iskuulka ka bixiyaan oo aabbaha cuntada ku siiyaan way noognahay nabadda dalkeenu maanta haysto qayb lixaad leh waxa ka qaatay haweenka haddaanu hawaan jirin meelaanu dumar jirin haygu dilin allah ayow bahid mahmahdi walaalayaal reer Somaliland meel kasta aad joogtaan waxaan idin kula dabtaan ku tahay walaashay raaxo sidaas ay xildhibaan ku tahay waa la saaray Menino,
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عاد يا بدل ما سنتين عاوش شعور تيدا لما سوكوبي كرو يا بدل على هالدمانتي أصحاب تيدا قرابة تيدا يوم دمان يا بدل إدوكم هدعلني وقتي نقالقة يسول مسين مانتا يا بدل إدوكم هدعلني فرحدة إذا عاوح لو سوكوبي كرو ما بقرأ ما شاء الله جزاك الله خير أيان إذن الله هاي مركورة وحردكم السلام يا دمانتين سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل كنا نعاو حد إذا سوكو بكريم السلام يا عاوة وحن نسيبك يهرت عاوة آد بوفي عيب بهوس وحلا كل مي madax sare iyo suldaankii suldaamada iyo wasiirkii waxbarashada aad baan jecelahay ilaahay baana jecel caawa ma sha Allah waxaan kaloo halkan ka salaamayaa gudoomiyaha oo aan halkan imanin xisbiga kulmiye Fuad Kamil Ciise waxaan kaloo salaamayaa xogayahayga Cabdikariin waxaan salaamayaa gudoomiyaasha dhammaan anigoon kala qaadaynin waxaan salaamayaa safiirka Sakariya Xasan Wacays oo isla garabkayga taagan oon marnaba aniga maqnayn oo baalashaan ku duulinaya waxaan kaloo salaamayaa dhammaan garabka haweenka oo ay garab u taagan oo dhinac walba iga xiga waxaan jecelahay dhammaan asxaabtayda oo dhan anigoon kala qaadqaadin caaw maba hadli karayba shucuurtaydu aad iyo aad u baxsatay maba ka sheekay karaya marka waxaan idiin sheegayaa anigoo hadalka soo koobaya inaan dalkaygii hadda u socdo oo aan wixii aan ka qabanayo doorashada iyo hankayga aan halkaa garabka haweenka dhammaan insha Allah lagu guuleeyo guul iyo gobonimo ayaan dhammaan anigoon hadalkaada hadda soo koobi karay wanan caawo farxad baanan hadliba karaynin iga raalli ahaada caawo Qaranka
sidii xamash xamashka buura